Ma ogtahay in Sergio Aguero oo maanta loo aqoonsan yahay mid ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa taariikhda kubadda cagta uu carruurnimadiisii ku soo koray nolol adag iyo duruufo dhaqaale oo xaddidan. Wuxuu ku soo barbaaray xaafado danyar ah, wuxuuna kubadda ku bartay garoomo ciid ah, halkaas oo uu ku dhisay kartidii iyo adkaysigii markii dambe ka dhigay xiddig weyn. Laakiin sidee ayuu wiilkii yaraa uga soo baxay duruufahaas adag una noqday ciyaaryahan ay dunidu wada taqaan? Maanta waxaan dib ugu laaban doonaa bilowgii sheekada Sergio Aguero, halgankii, kartidii, adkaysigii iyo dadaalkii uu ugu dambeyn ku gaaray heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta. Hase yeeshee, is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aan usii gudagalno muuqaalkeena. Bilowgii nolol adag, qoys sabool ah iyo deegaan halis ah. Sergio Aguero wuxuu dhashay 2 Juun 1988 magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina. Wuxuu ku soo koray xaafadda González Catán oo caan ku ahayd saboolnimo, shaqo la'aan iyo dhibaatooyin amni. Aabihii Lionel Del Castillo wuxuu ahaan jiray ciyaaryahan u ciyaara kooxaha heerarka hoose, balse ma uusan helin fursad uu ku gaaro heer sare. Hooyadiis Adriana waxay ahayd hooyo guri joogto ah oo dadaal badan u gashay daryeelka qoyskeeda. Qoysku waxay ku noolaayeen duruufo dhaqaale oo aad u adag, waxaana jiray maalmo ay cuntadoodu ku koobnaan jirtay oo kaliya rooti iyo shaah. Noloshu ma ahayn mid sahlan, balse maalin kasta waxay u ahayd halgan cusub ay ugu dadaalayeen sidii ay u heli lahaayeen nolol ka wanaagsan tii ay shalay ku noolaayeen. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatooyinkaas iyo deegaanka adag ma aysan jebin riyadii Sergio. Halkii ay ka niyad jebin lahaayeen, waxay ku abuureen geesinimo, dulqaad iyo rabitaan uu ku beddelo mustaqbalkiisa. Wiilkii yaraa ee ka soo baxay xaafadda González Catán wuxuu markii dambe noqday mid ka mid ah weeraryahanadii ugu caansanaa kubadda cagta adduunka. Sheekada ka dambeysa naanaysta kun. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee lagu xasuusto carruurnimadii Sergio Aguero waa naanaysta kun oo ilaa maanta dunida oo dhan looga yaqaan. Laakiin naanaystan kama uusan helin garoomada kubadda cagta ama taageerayaasha. Waxa uu bixiyay awowgiis isaga oo weli aad u yar. Awowgiis wuxuu arkay sida Sergio Aguero uu u jeclaa daawashada filim kartoon Japanese ah oo lagu magacaabi jiray Kumkum. Maadaama uu weli yaraa, ma uusan awoodin in uu si sax ah ugu dhawaaqo magacaas, wuxuuna markasta oran jiray kun. Qoyska ayaa arrintaas ka helay qosol iyo xiise, waxaana si tartiib tartiib ah ugu dhegay naanaysta kun. Magacaasi wuxuu la koray carruurnimadiisii, wuxuuna noqday astaanta lagu aqoonsado noloshiisa iyo xirfadiisa kubadda cagta. Maanta magaca kun wuxuu ka caan baxay magaciisii rasmiga ahaa, isagoo noqday naanaysta ay malaayiin taageerayaal ah dunida oo dhan ku yaqaanaan Sergio Aguero. Garoomadii ciidda ahaa ee dhisay mustaqbalkiisa kubadda cagta. Sergio Aguero kuma uusan bilaabin safarkiisa kubadda cagta xarumo tababar oo casri ah ama akadeemiyooyin waaweyn. Halkii uu ka heli lahaa garoomo waaweyn oo casri ah, riyadiisii kubadda cagta waxay ka soo bilaabatay garoomadii ciidda ee xaafaddiisa, kuwaas oo Argentina looga yaqaanay Petróleos. Garoomadaasi ma ahayn kuwo siman ama si wanaagsan loo diyaariyay. Waxay ahaayeen dhul adag oo ay ka buuxeen ciid, dhagaxaan iyo godad yaryar, kuwaas oo ciyaarta ka dhigayay mid adag isla markaana halis u ahayd carruurta ku ciyaaraysa. Laakiin Sergio kama uusan baqan caqabadahaas. Maalin kasta wuxuu saacado badan ku qaadan jiray isagoo kubadda la ciyaaraya carruur iyo ciyaartoy isaga ka waaweyn. Halkaas ayuu ku bartay sida kubadda loo ilaashado, looga baxsado difaacyada, loona ordo xawaare sare isagoo si degdeg ah u go'aan qaadanaya. Tababarkaas adag
ee garoomada ciidda ayaa si tartiib tartiib ah u dhisay xirfadiisii cajiibka ahayd. Wuxuu ka sameeyay ciyaaryahan leh maamul kubadeed oo heer sare ah, dheelitir wanaagsan iyo geesinimo uu kula tartamo qof kasta. Garoomadii yaryaraa ee xaafadiisu waxay noqdeen saldhiggii uu ka bilaabay safarkiisii ku dhammaaday inuu noqdo mid ka mid ah weeraryahanadii ugu magac dheeraa kubadda cagta adduunka. Taageeradii aan kala go' lahayn ee aabihii, Lionel Del Castillo, oo ahaa aabbaha Sergio Aguero, wuxuu lahaa hal riyo oo weyn: inaan wiilkiisu mar dambe soo marin noloshii adkayd ee isaga soo martay. Isagoo duruufo adag ku soo koray, Lionel wuxuu si fiican u garanayay waxa ay tahay saboolnimada iyo halganka. Sidaas darteed, wuxuu go'aansaday inuu wax walba u huro mustaqbalka wiilkiisa. Markii Sergio uu weli ahaa ilmo yar, Lionel ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee arkay hibada cajiibka ah ee ku duugnayd wiilkiisa. Wuxuu rumaysnaa in Sergio uusan ahayn ciyaaryahan caadi ah, balse uu leeyahay karti u horseedi karta heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta. Maalin kasta, Lionel wuxuu wiilkiisa u kaxayn jiray tartamada yaryar ee xaafadaha lagu qaban jiray. Tartamadaas mararka qaar waxaa lagu bixin jiray abaalmarin lacageed oo yar, taas oo Sergio uu ku guuleysan jiray xirfadiisa awgeed. Lacagtaas yar waxay noqotay gargaar muhiim u ah qoyska. Mararka qaar waxaa lagu iibsan jiray cunto, mararka kalena waxaa lagu dabooli jiray baahiyaha maalinlaha ah ee guriga. Inkastoo ay ahayd lacag kooban, haddana waxay ahayd mid ka dhalatay dadaalka iyo kartida Sergio Aguero. Taageerada, dhiirigelinta iyo rumaysadka aan kala go' lahayn ee Lionel Del Castillo waxay dhiseen xiriir aad u adag oo u dhexeeyay aabba iyo wiilkiisa. Xiriirkaas ayaa Sergio Aguero siiyay kalsooni, geesinimo iyo himilo uu ku gaaro riyadiisa. Ugu dambeyn, wiilkii yaraa ee xaafadaha u ciyaari jiray si uu qoyskiisa u caawiyo wuxuu noqday mid ka mid ah weeraryahanadii ugu waaweynaa ee kubadda cagta adduunka soo maro. Sheekadiisuna waxay caddaan u tahay in taageerada waalidku ay mararka qaar tahay furaha guusha ugu weyn. Bilowgii safarka Sergio Aguero ee akademiyadda Independiente, markii uu jiray 9 sano oo kaliya, Sergio Aguero wuxuu helay fursaddii ugu horeysay ee uu ku muujin lahaa hibadiisa. Isagoo galay tijaabada akademiyadda kooxda caanka ah ee Independiente ee dalka Argentina. Maalintii tijaabada, taageerayaashii iyo maamulka akademiyaddu waxay si degdeg ah u ogaadeen in wiilkan yar uusan ahayn ciyaaryahan caadi ah. Taabashadiisa kubadda, xakameyntiisa, xawaarihiisa iyo kalsoonidii uu ku ciyaarayay ayaa si weyn u soo jiidatay indhahooda. Waxyar gudahood, Sergio waxaa si rasmi ah loogu daray kooxaha da'yarta ee Independiente. Halkaas ayuu ka bilaabay inuu si joogto ah u muujiyo tayadiisa, isagoo dhaliyay goolal badan, isla markaana noqday mid ka mid ah ciyaartooyda ugu hibada badan ee da'diisa. Inkastoo uu jir ahaan ka yaraa inta badan carruurtii uu la ciyaarayay, haddana marnaba taasi caqabad uma noqon. Halkii uu xoog ku tartami lahaa, wuxuu ku tiirsanaa aqligiisa ciyaarta, dhaqdhaqaaqiisa degdega ah iyo xirfadiisa gaarka ah ee uu kaga baxsan jiray daafacyada. Maalinba maalinta ka dambeysa, Sergio Aguero wuxuu sii caddaynayay inuu leeyahay mustaqbal ifaya. Galitaankiisii akademiyadda Independiente wuxuu noqday tallaabadii ugu horeysay ee u horseeday safar cajiib ah, kaasoo ugu dambeyn ka dhigay mid ka mid ah weeraryahanadii ugu magac dheeraa kubadda cagta adduunka. Jabintii rikoor taariikhi ah, Sergio Aguero oo noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa sanadku markuu ahaa 5 Julaay 2003, waxay ahayd maalin dahabi ah oo gabi ahaanba beddeshay nolosha Sergio Kun Aguero. Isagoo jiray 15 sano iyo 35 maalmood oo kaliya, Aguero wuxuu saftay kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda koowaad ee Independiente, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee taariikhda kooxda heerkaas gaara. Maalintaas, Sergio wuxuu jabiyay rikoor taariikhi ah oo muddo dheer
uu haystay halyey kubadda cagta Argentina ee Diego Maradona waxay ahayd dhacdo si weyn u soo jiidatay indhaha taageerayaasha iyo warbaahinta kubadda cagta ee caalamka. Inkastoo uu ahaa wiil yar oo aan weli qaangaarin, haddana ma uusan muujin wax cabsi ah. Wuxuu garoonka ku soo bandhigay kalsooni, xirfad iyo geesinimo ka yaabisay qof kasta oo daawanayay. Daafacyadii waaweynaa ee uu wajahayay waxay si degdeg ah u ogaadeen in wiilkan yari uusan ahayn ciyaaryahan caadi ah. Taabashadiisa kubadda, xawaarihiisa iyo awooddiisa uu kaga baxsan jiray daafacyada waxay ahaayeen calaamado muujinayay in xiddig cusub uu ka soo baxay Argentina. Kulankaas taariikhiga ah wuxuu noqday bilowgii safar cajiib ah oo Sergio Aguero uu ugu dambeyn ka dhigay mid ka mid ah weeraryahanadii ugu magac dheeraa kubadda cagta adduunka. Saameyntii Diego Maradona ku lahaa nolosha Sergio Aguero. Diego Maradona ma ahayn oo kaliya halyey ay carruurta Argentina ku daydaan, balse wuxuu noqday qof si gaar ah u saameeyay nolosha Sergio Aguero. Sergio wuxuu ku soo barbaaray isagoo la dhacsan ciyaarihii Maradona, isla markaana ku haminayay inuu maalin uun gaaro heerka uu gaaray halyeygaas weyn. Laakiin qadarku wuxuu qoray sheeko ka weyn riyo kasta. Markii Sergio uu noqday xiddig soo baxaya, waxay isbarteen Giannina Maradona oo ahayd gabadha uu dhalay Diego Maradona. Xiriirkoodii jecel wuxuu isu beddelay guur, waxayna wada dhaleen wiil ay u bixiyeen Benjamin Aguero Maradona. Guurkaas ayaa si rasmi ah isugu xiray laba qoys oo magac weyn ku leh kubadda cagta Argentina. Diego Maradona wuxuu noqday sodogga Sergio Aguero, isagoo si dhow ula socday horumarkiisa, marar badanna u muujiyay taageero iyo kalsooni. Inkastoo guurka Sergio iyo Giannina uu markii dambe soo afjarmay, haddana xiriirka qoyska iyo wiilkooda Benjamin wuxuu weligiis ahaan doonaa qayb muhiim ah oo ka mid ah taariikhda Sergio Aguero. Sheekadan waxay muujinaysaa in Sergio Aguero uusan noqon oo kaliya ciyaaryahan ku dayday halyeygiisii, balse uu noqday qof noloshiisa si toos ah ugu xirmay qoyska mid ka mid ah halyeyadii ugu waaweynaa ee kubadda cagta dunida. Ka mid noqoshadii xulalka daayarta ee Argentina. Intii uu ku jiray da'da dhalinyarada, Sergio Aguero wuxuu si degdeg ah ugu dhex muuqday xulalka daayarta ee Argentina. Hibadiisa iyo dadaalkiisa ayaa ka dhigay mid si joogto ah loogu yeero xulka qaranka ee Argentina, halkaas oo uu ku soo bandhigay ciyaaro cajiib ah. Sanadkii 2005, Aguero wuxuu qayb ka ahaa kooxdii Argentina ee ku guuleysatay koobka adduunka ee daayarta, isagoo door muhiim ah ka qaatay guulahaas. 2 sano kadib, sanadkii 2007, wuxuu mar kale hogaamiyay Argentina isagoo ka caawiyay inay difaacato horyaalka oo ay mar kale ku guuleysato koobka. Tartankaas 2007 wuxuu noqday mid taariikhi ah oo uu Sergio si buuxda u iftiimay. Wuxuu ku guuleystay 2 abaalmarin oo waaweyn: Golden Boot oo la siiyo goolaliyaha ugu sareeya tartanka, iyo Golden Ball oo la guddoonsiiyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan tartanka. Guulahaas ayaa dunida tusay in Argentina ay heshay xiddig cusub oo diyaar u ah heerka ugu sareeya. Kooxo badan oo waaweyn oo Yurub ah ayaa bilaabay inay si dhow ula socdaan horumarkiisa, iyagoo garowsaday in uu yahay weeraryahan leh mustaqbal weyn. Koobabkii iyo abaalmarinadii uu ku hantiyay xulka daayarta waxay noqdeen albaabkii u furay safarkiisa Yurub. Wiilkii yaraa ee ka soo baxay Buenos Aires wuxuu hadda diyaar u ahaa inuu tallaabada ugu weyn ee xirfadiisa qaado, isagoo u dhaqaaqaya qaaradda Yurub si uu u rumeeyo riyadiisii kubadda cagta. Safarkii Yurub laga bilaabo Atletico Madrid ilaa Manchester City, kadib sanado badan oo halgan iyo dadaal ah, riyadii Sergio Aguero ugu dambeyn way rumowday. Sanadkii 2006, kooxda Atletico Madrid ayaa la soo wareegtay weeraryahanka da'da yar ee reer Argentina. Heshiiskaas wuxuu noqday isbeddelkii ugu weynaa ee noloshiisa, maadaama uu qoyskiisa ka saaray duruufihii adkaa oo ay muddo dheer la noolaayeen. Markii uu yimid Spain, Aguero si degdeg ah ayuu ula qabsaday kubadda cagta Yurub. Xawaarihiisa, xirfadiisa iyo awooddiisa gool dhalinta
ayaa ka dhigtay mid ka mid ah weeraryahanadii ugu cabsida badnaa horyaalka Spain. Wuxuu si joogto ah u muujinayay inuu leeyahay tayo u qalanta heerka ugu sareeya. Sanadkii 2011, Aguero wuxuu u wareegay kooxda Manchester City, halkaas oo uu ka noqday halyey aan la ilaabi karin. Xilli ciyaareedkii 2011-2012 wuxuu dhaliyay mid ka mid ah goolashii ugu caansanaa taariikhda Premier League. Goolkiisii daqiiqadihii ugu dambeeyay ee kulankii ay la ciyaarayeen kooxda Queen's Park Rangers wuxuu Manchester City u horseeday horyaalkeedii ugu horeeyay ee Premier League muddo 44 sano ah, isagoo qoray bog dahabi ah oo aan weligiis ka tirtirmi doonin taariikhda kubadda cagta. Sergio Aguero wuxuu caddeeyay in riyada ugu weyn ay ka dhalan karto meelaha ugu adag. Wiilkii yaraa ee ku soo koray waddooyinka Argentina una ciyaari jiray si uu qoyskiisa u caawiyo, wuxuu noqday mid ka mid ah weeraryahanadii ugu waaweynaa ee dunida soo marta, magaciisana waxaa lagu xasuusan doonaa jiilal badan. Dhammaadka sheekada, casharadii nolosha ee Sergio Aguero. Safarka Sergio Aguero wuxuu ka bilaabmay xaafado sabool ah oo ku yaala Argentina, balse wuxuu ku dhammaaday isagoo noqday mid ka mid ah weeraryahanadii ugu waaweynaa ee kubadda cagta dunida soo mara. Inkastoo uu gaaray guulo waaweyn, koobab badan iyo sumcad caalami ah, Aguero mar walba wuxuu ahaa qof is-hoosaysiiya. Wuxuu si joogto ah u xasuusan jiray halkii uu ka soo bilaabay, mana uusan ilaabin dadka iyo deegaanka ku dhiirigeliyay inuu riyadiisa raadsado. Wuxuu marar badan taageero iyo dhiirigelin u fidiyay carruurta riyada ka leh kubadda cagta, isagoo rumaysnaa in fursad yar ay beddeli karto nolol dhan. Nasiib daro, dhammaadkii xirfadiisa waxaa hareereeyay dhibaato caafimaad. Sanadkii 2021, isagoo u ciyaaraya kooxda Barcelona, waxaa lagu ogaaday dhibaato dhinaca wadnaha ah. Talooyinka dhakhaatiirta awgood, wuxuu go'aansaday inuu si rasmi ah uga fariisto ciyaaraha si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa iyo noloshiisa. Inkastoo xirfadiisii ciyaareed ay soo afjarmatay si ka horeysay sidii la filayay, haddana taariikhdii uu ka tegay lama tirtiri karo. Goolashii uu dhaliyay, rikooradii uu jabiyay, iyo koobabkii uu ku guuleystay ayaa weligood ka mid ahaan doona taariikhda kubadda cagta. Maanta, Sergio Aguero waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa ee jiilkiisa. Sheekadiisuna waxay fariin cad u tahay qof kasta oo riyo leh. Haddii aad rumaysato naftaada, aadna u samirto oo aad dadaasho, duruuf kasta oo adag waa laga gudbi karaa, riyaduna way rumoobi kartaa. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg sheekadii Sergio Aguero. Intaan ku kulmi doono sheeko tan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.